dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waalidiinta qaarkood oo la socda ciyaartoyda iyo qaarka la daawanayo dhammaantood waxaan maanta leeyahay waa maalin farxad leh waa maalin taariikh ah anigu shakhsiyan maanta waxay mar kale ii tahay farxad weyn inaan joogo garoonka kubadda cagta ee Stadio Konis sababtoo farxadda gaarka ay u tahay waxay tahay waxaan ognahay Stadio Konis waxay ka mid tahay guryaha ama xarumaha ugu nabadda badan Soomaaliya taana waxa sabab u ah markaan leeyahay ugu nabadda badan waxay ka madax bannaan tahay wax siyaasad ah waxay ka madax bannaan tahay wax qabiil ah waxay ka madax bannaan tahay wax isku haysi ah waxay astaan iyo tusaale iyo sawi wanaagsan u tahay Soomaaliya oo Soomaaliya oo nabad ah iyo Soomaaliya oo isdhex gashay iyo Soomaaliya oo heshiisay saadarteed taariikh ay tahay waa guriga ama xarunta ugu nabadda badan Soomaaliya maadaama ay ka madax bannaan tahay arrimaha siyaasadda inta kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo runtii meel fog ka soo bilaabay Soomaalidu way mahmaahdaa waatan tiraahdo guushu waa la wada leeyahay laakiin xaqiiqatan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed guushan maanta la wada yeeshay ayaga soo bilaabay ayaga tiir dhaxad u ahaa ayagana soo dhameystiray waan u mahad celinayaa inta kadib waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo bahda saxaafadda oo u istaagtay caawin qaran istustay keentay aragtida ah in maanta loo istaago dhalinyaradan halyeeyga ah ee aan dhowr mar iri ciise iyo sharaf calanka ay ciidda u soo hoyeeyeen u istaagaan waa wax lagu farxo waxaan ognahay bahda saxaafadda waxaan rabaa inaan qayb yar ka idhaahdo waxaa laga yaabaa maanta inay isweydiiyaan way istaageen waxay u istaageen dhalinyarada inay dhiirgeliyaan laakiin ogaada saxaafadda waxay ku bixisaa isboortiga iyo horumarka Soomaaliya wax aysan lacag goyn karin taasoo ah saxaafaddu waxay ku bixisaa naftooda waxay ku bixiyaan maalkooda waxay ku bixiyaan xirfadooda iyo aqoontooda waxayna ugu dambeyn dadka gaarsiiyaan wax dad kale aysan gaarsiin karin waxaan xasuustaa intii aanan ka qayb gelin ciyaartii kubadda cagta ee finaalka ee ka dhacaysay Burundi in ciyaar walba oo Soomaaliya dheelaysa dadka access ay u haysteen inay daawadaan taana waxa sabab u ah saxaafadda waana kaga mahad celinayaa runtii sida ay markaa soo garab taagan yihiin aragtidan dahabiga ah ee maanta loo istaagay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee xulka qaranka ee da'dooda 17 sano ka yar tahay in maanta loo istaago oo wax la isugu daro oo la dhiirigeliyo waxay tusaale u noqonaysaa ma ahan ayaga kaliya waa mahad iyo qiimeyn iyo bogaadin waalidkii ayaga ku soo dadaalay ee maanta uu ogolaaday in xulka qaranka Soomaaliyeed matalaan ummadda Soomaaliyeedna waxay u tahay sharaf iyo karaamo ayay u tahay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo waalidiinta ciyaartoyda 17 jirada ama ka yar da'dooda waalidkii dhala aabe iyo hooyo walaal iyo saaxiib daris iyo deegaan haddii aydan maanta dhiirigelinta idinka soo bilaabo lahayn oo aydan u soo fasaxi lahayn oo aadan garab istaagi lahayn taariikhda iyo ciisada iyo sharafta ee Soomaaliya u soo hoyeen maanta ma keeni lahayn hooyo waa mahadsan tahay aabo waa mahadsan tahay sababtoo ah waxaa xusid mudan aan tusaale u soo qaadano ciyaaryahanka Ismaaciil oo aan taariikhdiisa wada ognahay oo aniga aan ku booqday dhammaantood ku soo arkay Burundi qiyaas waalid duruufta inta la ku jira wiilkiisa kala qayb qaata ganacsiga ay iibiyaan ee yar in maanta xulka qaranka uu ciyaaro waalidkaas waa inaan dhahnaa hooyo waa mahadsan tahay aabba waa mahadsan tahay waa inaan dhahnaa Ismaaciil wuxuu tusaale u yahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan tusaale u yahay aniga ma jecli kelmadda inaan isticmaalo barakacayaal sababtoo ah maaha qof kasta ee magaalo yimaaday magaaladaas ayuu ka mid yahay dadkaas ayuu ka mid yahay bulshada kalena waa inay soo dhaweysaa kuna faraxdaan kumanaan iyo boqolaal Ismaaciil oo kale ayaa ka mid ah oo calankeena iyo ciideena iyo dadka maanta annaga aan nahay sharaf u soo celiyay sidaa darteed waxaan waalidka leeyahay taariikhda maanta ay sameeyay maadaama qayb ah ka noqoteen oo ummadda Soomaaliyeed idin xustay idinna mahad celinayso fadlan aabayaal iyo hooyooyinka iyo dhammaan waxaan leeyahay qayb ka ahaada taariikhda cusub ee Soomaaliya ay u sameyn doonaan oo baal dahaba mar kale ka geli doonta insha Allah taala waxaan rabaa
inaan ugu dambayntii ku soo gabagabeeyo maanta waxaa la isugu tagay ee u istaagta saxaafadda oo ay dhiirigelintan u sameeyeen waa shakhsiyaadka kubadda cagta maanta noo ciyaaraya ee qaranka lagu matalaya waxaan ku baaqayaa in loo istaago institution ahaan ama hay'ad ahaan in loo istaago si maadaama ciyaartooydan sida hadda aan warka ku hayno ee August bishan ay ciyaari doonaan isla kulanka Sekafa mar kale in loo istaago in la garab istaago xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed maanta in la bilaabo laga shaqeeyo ciyaartooydan sidii loo xaqiijin lahaa in ay u helaan xuquuqdii aasaasiga iyo xanaanadii ciyaartooyda u baahnaa inay helaan anigu waxaan ka aaminsanahay sportiga ma ahan kaliya isdhexgal ma ahan jirfayo inuu sameeyo laakiin sportiga waa ummadda Soomaaliyeed meesha kaliya ay isugu timaado oo ay haddii ay daawanayaan haddii ay ciyaarayaan iyo haddii ay meel fog joogaan iyo haddii ay dad taageero yihiinba waxa mideeya waa sportiga kalarkooda waa sportiga dabeecadooda waa sportiga qarankoodana waa sportiga sidaa darteed xiriirka gacanta ku hayo waxaan ugu baaqayaa qof walba oo Soomaaliya inaan kaliya loo deyn dawladda federaalka maadaama ayada ay qayb ka qaadanayso laakiin bulshada Soomaaliyeed ay maanta u istaagto in institution ahaan ama hay'adda xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed la garab istaago si taariikhda qiyaasa ayadoo aysan qofna ku kaalmaynin duruufo adag soo mareen ayay Soomaaliya waxay gaarsiisay inay ka adkaadaan ama ka badiyaan xulalkii lagu qiyaasay inay koob ka qaadaan saa darteed waxay noqdeen inay hor kacaan ay bulshada hor istaagaan saa darteed inaan maanta garab istaagno waxa xaqiiqo ah taariikhda maanta ay sameeyeen Soomaaliya hore aan u sameeyay dhinaca kubadda cagta inay mid ka fog sameyn doonaan gabagabadii waxaan ku baaqayaa oo dhammaan ummadda Soomaaliya aan u sheegayaa sportiga iyo saxaafadaba mas'uuliyadda Soomaaliya idinka saaran waa mas'uuliyad qof kale aysan ka saarnayn waxaad tihiin aragtida ummadda Soomaaliyeed ay ku wada heshiiyeen qofka suxufiga wuxuu istaagaa meel dadka qaarkood aysan istaagi karin ama ha ka cabsadaan ama ha ka aaminsanaadaan fikir qaldan qofkaas kale laakiin waxay u tagaan inay bulshada runta ogaato saa darteed ciyaaryahanka isagana wuxuu bulshada u matalaa oo uu bulshada u muujiyaa dabeecad qaran oo ummadda oo dhan ay u wada siman yihiin qofka ciyaartooyga ah meel kasta uu jooga adduunyada waa la soo wada dhaweeyaa waa lagu wada farxaa meel gooniyo laguma riixo waxaa la aaminsan yahay inuu bulshada halyeey u yahay bulshadana taariikh markasta u sameeyo sidaa darteed waxaan ku boorinayaa kula dardaarmayaa saxaafadda iyo bahda sportiga inaad sidaa isku kaashin jirtay isku kaashataan ogaada haddaydan ogeyn Soomaaliya gaar ahaan Sekafa maanta final inay gaarto ciyaartooyda Soomaaliyeed ee 17 jirada xiriirka kubadda cagta iyo bahda saxaafadda ayaa taariikhdaas ummadda Soomaaliyeed u sameeyeen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa hambalyo markaa